السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada asxaabta ku xidhan Karama Channel. waa muuqaaladeenii aad nooga barateen xiisaha lahaa qayb ka mid ah oo aynu maanta soo qaadan doono muuqaalo kaamaradaha duubeen oo aad iyo aad u cabsi badan. fadlan haddaba haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro oo ku soo biir si aad uga mid noqotid asxaabta Karama Channel oo maalin kasta la socda muuqaalo xiiso leh oo kala duwan. muuqaalkeenan ugu horeeya waxaa la soo dhigay YouTube-ka sanadan aynu ku jirnay 2020 bishii labaad ee February ama Febraayo, waxaana uu muran badan ka dhaliyay dalka Spain, waana halka lagu duubay muuqaalkan aynu iminka soo qaadanayno. wiil yar iyo ayeydii ayaa iska wada sheekeysanayay xilli iska caadi ah, kaamaradooduna ay u shindad oo sawir ka qaadayay. ayeydii markii hore caadi ayay u sheekeynaysay, laakiin markii dambe waa ay oyday. markaas kadib maalin kadib waxaa dhacday in si dhaqso ah ay ayeydii ay u dhimato oo ay naftii uga baxdo. wiilkii arrintii mucjiso ayaa ay ku noqotay. kadib si uu ugu xasuusto ayeydii waxa uu ku noqday wixii uu ka duubay ama fiidiyowgii ugu dambeeyay ka duubay, laakiin muuqaalkii waxa uu kala kulmay wax ay noqotay wax cabsi ah, la yaabna ku noqotay wiilkii. si fiican ugu fiirso oo indhaha kala fur. sida aad u wada jeedaanba waxaa ka soo muuqday halka ka soo horjeeday kaamarada makhluuq kaas oo madooba isla markiibana isqariyay. haddii aad si fiican ugu fiirsatid waxaad arkaysaa indhihiisana sida aadka ah u ifaya. waa haddii aad si fiican ugu fiirsatid oo aad indhaha caadi u kala furtid. makhluuqan waxa uu ku sifeeyay ama uu ku sheegay wiilkii ayeyda u ahayd fiidiyowgan soo gudbiyay in uu ahaa wixii sababay dhimashada ayeydii. bal fikirkiinu maxaa uu noqonayaa? sida ay leeyihiin majin sidan isu soo eekeysiiyayba mise waa wax kale? haddaba fikirkiina waxaad ku reebi kartaan commentiga. mid ka mid ah gaadhka ka haya ama ilaaliya dhismayaal waaweyn oo ku yaala dalka Brazil ayaa habeenkii waxa uu maqlaa codad aan hor u maqli jirin. kadib wuxuu soo galaa meesha uu codad ka maqlo, laakiin waxba uu ka waayaa. wuxuuna naftiisa ku qanciyaa meeshan meel aad u xidhxidhan oo ammaan ah ay ahayd, cid gudihiisa soo dhacda inaysan dhici karin. kadib waa uu iska noqdaa, laakiin wixii waa ku soo noqnoqdeen. kadib waxa uu baaray kaamarada, laakiin waxba waa uu ka waayay. laakiin hal kaamarad ayaaba markii dambe wax u iftiimisay. waxaasna waynu isla arki doonaa. sida aad u wada jeedaan markhaatigana uga wada tihiin, waxa uu meeshii ku arkay makhluuqaas oo dhex wareegaya qolka loogu talagalay in wax lagu kaydiyo. waxaana uu ninkii yidhi waa meesha qolkani waxa uu ku yaalaa meesha uu codku ka soo bixi jiray ee aan odhan jiray talo waa xagee.
waxaana uu yidhi qolkaas waxaa degan jin. muuqaalkana dad aad u badan ayaa youtube-kooda iyo baraha bulshada oo kale kusoo qaatay oo kusoo daray muuqaalada jinku oo kasoo muuqday. waxaan rajaynayaa inaad ra'yigiina nala wadaagi doontaan. She